haddaan beecsharo geliyo beecsharada ayada ahayd wax ma ii taraysaa taasaa muhiim ah horta beecsharada haddaa ogeen annaga waxaan inbaraynaa dadka hataa beecsharo sida uu beecsharaysana laama inbaraynaa waxaa meeshan maaragtay dadka hadhow maaragtay lacagahan heli doono oo lasoo dhejin doono waxaa loo fidin maaragtay trainings waxaa jirtaa maaragtay haddaa idhahdo maanta haddaad maanta idhahdo dhamaajaley baan joogaa saaluun baan furan rabaa meeqaa gabdhoodu saaluunkaa tegi yaa dhamaajaley saaluunka meeqaa gabdhooda tegi doonta haye haddaa idhahdo aba qayliyaan joogaaye maaragtay waxaan furanay kawosh waan furan meeqaa gaari baa abo yaa joogtaa fiiri waxaan iin sheegaynaa waxyaalaha jiro oo macquulka ah dhageysta waxyaalaha jiro oo macquulka oo maaragtay beecshirada geli uma beecshirada aad ku samaysan beecshiro aan jirin mase meel kale aad ka soo fiiriso ood maqashe maaragtay adi hadda beecshiradaas ay dadkii aad ka gadi lahayd wax beecshirada yaa loo samaynayaa soo dadka mununusi soo dadka adi maaragtay ku ag joogaan maaha beecshirada dadkaasaasa loogu talagalay annaga waxaan rabnaa 50% inaan haweenkii siino balaaga aw hadda gabdhihiisa ay diya amaanayn ya wasiirkan amaanayn aw waxaa la rabaa inay lacagahan soo qortaan ya lacagaha inay soo qortaan oo maaragtay ay lacagahan ku faa'iidaan fiiri gabadha shaah hadda karkarinayso shaah oo meel la'aan lahayn inay meel furataa la rabaa ninka aan waxba haysanin inuu gaari goombo u buuxsada la rabaa 200 meeqay buuxin kartaa gaari goombo soo ma buuxin karto sayd bay waliba 100 baad dhigan 100 baad ku buuxin 100na way ku yaal waa kiiba marka lacagahan waliba waxaan ii sheegaynaa grace period wax la dhaay siinay 3 bilood oo ugu hore ma bixinayso waxbana 3 bilood oo ugu hore waa ku jika kamuwa 3 bilood oo ugu hore waxa way ina istaagtaa la rabaa 3 bilood oo ugu hore 4 bilood tan afaraad uma lacagta aad bixinay yar iskaga bixinay haddaad rabto oo maaragtay lacag yar meel ka hesho waarta baalkeen laakiin annaga mid muhiim nooma aho intaad lacagta cunto haddii haddaad dibadaha lagu jiro oo wiil iyo gabar intay dibadda ku jiraan lacagtina aa cunto sanadka bacdina maaragtay lacagtii oo sideeda aa keento waxba aad ku qaban annaga muhiim bay noo tahay muhiimadii gafanagu waa arrinta ka lahaa may imaanin markaas ayada muhiimadii gafanaga ka ahaa waxaa waaye meeqaa beecshir horta meeqaa lacagtan 150 milyan baa hadda la bixinaya each sub countyna wuxuu heli maaragtay lacag isku mid ah buu heli cadadeeda waa isku mid intii la bixinayo balanbala ay helayso bay heleen laakiin waxaan in warsanay in sheegi haddii ay dadaab sub county ay soo codsan waayaan annaga marka ayada maxaan dhaynaa nimankan ilma adeertayna cawda qabaya lacagta loo diiday niman dhayna masaasaan dhayna ya maxaan saa u dhayna maana soo codsanin maxaan saa u dhayna maaman soo codsanin runta markaa isku shay haddaan soo codsanin maxaa la siin lahaa waa codsi inay maaragtay waraaqahaada iyo codsi iyo weliba sharuudhayaashii iyo guddi aad marto fiiri waxaan iin sheegaya oo kale wasiirka in sii fafaahin dad baa qaatay deen oo lacagii hore ah dad baa waxaa lagu leeyahay M-Pesa mshwari deen lacagtan ayada ee annaga waxaan fiirinaynaa wax la dhaho credit reference bureau ma maqash yaan fiirinaynaa waxaan kaa fiirinaynaa inaa maaragtay lacag deen ay kugu maqantay lacag deen hadday kugu maqantay lacagtan kuma siinayno dowladdu waa isku mid dowladda aan lacagta ka qabto taa kore oo Uwezo Fund aan lacagta ka qabto masafa women fund aad ka qabtay tan waa isku mid ay ka maatay lacag kuguma darayno anaga hal mar haddaan ogaano hal mar baana la ogaan groupka markaa keentiin mase uu individual shakhsiga u imaado hal mar umaan ku dhufanaynaa waa 100 shilin fir 100 shilin markii way ku soo baalkeen inaad ku jirto maaragtay run cabdi ma farax inay ku jirto maaragtay waa la fiirin waa la ogaani marka lacag dadka lagu leeyahay deen lagu leeyahay anaga ma bixinayno lacag feeri lacag deen buu leeyahay deen kale ugu sii dar intee lagu arkay ma dhici karto waxaas marka taas ayada ana waxaan rabaa inaan ii sheego wasiirkan rabaa horta arrimahan inaan ku sii wareejiyo laakiin waxaan rabnaa inaan wixii arrinta ka qabtiin maanta
oo su'aale ah inaan inta ku dhamayno inta aan ku dhamayno markuu wasiirka hadla ka dambe su'aalaan in furaynaa su'aalihii inaa inta aad ku keentiin aad maanta dhamaysiin inta kale ay noqoto dadka application u aado application kala buuxiyo taariikh 30 buu maarta dhamaan taariikh 30 taariikh 11 waa la xiri bash hata hadaad keento saa 11 na dakika 5 uwezi ukubaliwa formka hadda alqaata sida u dhib yar maarta la soo buuxiyo alla soo keeno marka ward walbana maarta inta each area baan u sheegnay inay wacyigelin ku sii sameeyaan dadkooda ay dhahaan dadkii arintan waad ogsoontiin dhaqaalaha kaliya oo degdeg ah hadda oo maarta county ka socdo oo hadda MCS ka muhiim u ah waa tan maxay la haday helaan maanta haduu helo abo boqol group mase maarta bahal kale oo arintan heshe dadku way farada badan oo maarta aadayin way daynayaan maleex oo dhibayin hata maarta waa la yara qawbi marka lacagahan waa lacag xalaal waaye maarta waxa la gabixiyo ribada dawladda bixisa wax ribo inaga in ku jirto ma laho 200 hadaa qaadato 200 maad keeni 500 hadaa qaadato 500 ma laga rabaa 500 waxa laga rabaa maartay hadhow dambe waxa dhii hadana waan casriyay maxaan u baahanahay 1 milyan baan u baahanahay lagu siini masruux kala hadana oo helin baa la siini marka arintan waxaan rabnaa reedaad inaad u qaadanin arin musaaha ah mase waraaqa la soo sidaayo waxyaalaha u qaadanin maxay lacagta dadaad waa diyaar lacagta sub county walba waa diyaar waajana ku fungo uko nani beeshara ingine tukona beeshara hapa sasa waxaan ii sheegi lacagtan diyaar waay taariikh next month anaga waxa waay tuna gaagua meeqa maarta ka imaatay dadaab sub county meeqa balambala ka imaatay meeqa balka ka imaatay na tuna bayana peesao marka dambe waxa la ku soo dajin inta ruuxo maarta lacagta la faa'iiday oo heshay marka reedaab wasiirka horta arintan maanta iskale oo waftigan u weyn asaga maarta badsadan iskale waxaan rabaa inaan ila soo dhaweysiin wasiirka gacmaha si fiican oo maarta mupiga makofi waziri karibu وشايك رشدا إلا كبغراي بحكيك وبندو ونظا ونشا وشايك رشدا إلا كبغراي بحكيك وبندو ونظا ونشا بالعام بروح ليه أخلاق بغلي وطار قولي بكتي كويسة بالعام بروح ليه أخلاق بغلي بس توشة دادار السلام عليكم هويني وأبو كرعدة marka gaabida barkii bukar cadde ma aha barkii sabwadalki sida kale laakiin qurux badan baan ahay laakiin kurbada igu haaso bulshada gaarisa inaan u shaqeyno 3 maalin baan ordahaynaa darad mudagashaan joognay shalay maxaan joognay burra maantintaan taaganahay berri waa balaanbala berri dambe waa masalaani insha allah haddana waxaa la tagaya insha allah baka haluuqo township marka horta waxaan meesha u joognaa waxa way inta hadalka aan bilaabin waxaan nii wadaa salaan culus oo ka socoto gafanahayna Sayid Ali Buno qorane salaanta ma qaadeen salaanta buskin burbuukeen waa la qaadaa salaan su'aal male soo maha salaanti labaad waxaan ka wadaa Dr. Dahiye sidoo kale wuxuu yidhi haddaan meesha tigto dadkii uu salaam tii saddexaad waxaan ka wadaa saaxiibkayga أبوها داويد سين محل قرني جوباد وحضرنا مقع دير وعد جوباد ولا قرني فامك جوباد ولا قرني مركا وهذا صاحب أذن هاي مركا
sidoo kale waxaan ka wadnaanta iyo sanataga marka inta ku dina waxaa weeye horta egi wax la doonaya inta waxaa loo doortay inay u shaqeeyaan qabiil iyo waxaasayto hadda muhiim maaha markii uu guri la doonayo af kasta waa lagu hadli karaa ilaa markuu mas-uuliyadda ilaahay ku saaro xilka aduu kula soo wareega inaad ummadda loo shaqeeyo waxaa u malayna xisaabna nin ilaahay iyo malaa'ig saar xisaabi xisaab aadin maxaad ku faliba qofkii asaa la xisaabtamaya anagu xisaabna saaran tahay waan ogsoonahay muslimiin baan nahay wixina saaran waan ogsoonahay dadkana xorigii buu yahay markastaa sidii gabar ugu sheegay inay maskaxda lagu kala dugnaado waa wax la ogol yahay laakiin inaan jecel nin qabno waxaa daliila markaan barnaamijkan bilaabnay siduu manajaga nii sheega waxaan ka bilaabnay degmada Madogaash kadib waxaan rabaa inaan aad igu mahadceliyo sidaan noo soo dhaweyseen oo sharafta leh cuntada macaan oo aad u cunno oo fiican oo malaynay hilib geelin oo hay in kasta xaka gudubno waxa way maxaa meesha uu maanta u taagannahay maanta meesha waxaan u taagannahay ballanqaad baa uu qaaday gafana markuu wax doonay wax uu hele ballankii ugu koowaad oo ku jirta waxay ahayd in kor loo qaado asmaqale in kor loo qaado dhaqaalaha dumarka iska dhageysta fiiri ay bas iska kor loo soo qaado dhaqaalihii dhalinyarta kor loo soo qaado iyo dhaqaalaha dadka curyaamiinta marka haddii